qaar ka mid ah qurbo joogga beelaha Arab ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa shir ay iskugu yimaadeen kaga hadlay qorshaha ay xukuumaddu la damacsan tahay inay ku qabato ganacsiga Axmed Ismaan Gelle. Qaar ka mid ah qurbo joogga beelaha Arab ee magaalada Toronto ee waddanka Canada ayaa shirkan isku arkay kadib markii ay maqleen in xukuumadda Soomaaliland ay qorsheynayso inay ganacsiga Axmed Ismaan Gelle u gacan geliso ama u dhiibto dawladda Djibouti oo dacweynaysa. Sidoo kale qurbo joogga ayaa taageero ballaaran u muujiyay qaabkii ay salaadiinta beelaha Arab uga hadleen waaranka ay dawladdu doonaysay inay ku qabato ganacsiga Axmed Ismaan Gelle waxaana hadaladoodii ka mid ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان رير سومالان مeel kasto joogan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته baan leeyahay maanta waxaanu idin kala hadlaynaa magaalada Toronto ee waddanka Canada qurbo joogga beelaha Arab meel kasto joogaan waxaan maanta magaalada Toronto gudideedii afka ay ku hadlayso halkan aanu fadhinaa maanta in aanu ka hadalno arin aad u fool xun oo maanta naga soo gaaray waddankii Soomaaliland magaalada Hargeysa waa magaalo madaxdii aanu ka soo wada jeednay loo wada dhashay ee aan maanta la kala lahayn waxa arinkaas dhacay waxa weeye Axmed Ismaan Gelle Arab arinkiisii baanu ka hadlaynaa oo maalqabeenta maanta Soomaaliland ah isagoo ku jira nimanka waddanka dib u dhiskiisa isagii aabihiiba ay ka qayb qaateen waxaanu maanta ka hadlaynaa oo aanu fadhinaa oo aad aan uga yaqiiqsoonaynaa wixii ka dhacay maanta waddanka isagoo aad moodo in hadday beel ahaan tahay iyo haddii ay soo duulmaad waddanka la soo duulay uu doonayo in farihii waddanka la soo galo waxaanu ogeyn in Somaliland 1991 maalintii la aasaasayay ee laga soo duray inay odayaashu ku heshiiyeen ama dadku ay ku heshiiyeen in midnimo iyo waddan jacayl iyo dadku ay isku yimaadaan 1993 beesha Arab ama beelaha Arab waxay u ahaayeen hormood in ay hubkii dhigaan laakiin subxaanallah waxaad muddo hubkii ay dhigeen in wax dhibaato badan ay ka soo gaadhay waxaanu leenahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaad ku fadhidaa codkayga madaxweyne waxa waliba aan kugu ixtiraamaynaa inta annagu aad uga xun arinka dhacay maanta baaq ba salaadinta ka soo baxay baaqa salaadinta ka soo baxay annagoo daba socona odayaashuna way fadhiyaan oo ay ga dambeyn doonaan aad baan uga xunnahay adoo codkaygii ku fadhiya inaad maalqabeenkii maanta waddanka dib u dhiskiisa soo qaabtay warshadahu leeyahay waxa weeyaan warshadaha ugu waaweyn Somaliland dakhliga ugu badan cashuurta ugu badan ee waddanka lagu dhisay rarka soo galiya weeyaan in maanta la yiraahdo arin nin ka soo farageliyay oo ka qabanaya oo doonaya in xoolihiisa la wareego waa arin aad looga yaqsiisado weeyaan waxaan leeyahay oo aan fariin baaq dheer u dirayaa dhammaan reer Somaliland meel kasta ay joogaan Somaliland waxaynu ku heshiinay inaynu horumarno in aynu gacmaha isqabsano inaynu tashano ceeb iyo fadeexad bay tahay maanta inaynu dib u celino oo ay noqoto in waddankii nin loo maraysto halku maanta Muuse Biixi ka dhiibayo nin kasta oo qarani maanta waxa weeyaan reer buu ka soo jeedaa nin kasta oo wasiiri reer buu ka soo jeedaa aad iyo aad baan uga xunnahay haddii maanta uu arrinka laga waantoobi waayana waxay noqonaysaa reer buu ka dhashay inuu reerkaasi difaaco ma oranayo dagaal baa la qaadaya laakiin talaabada aad qaado talaabadeedun baa loo diyaar garoobayaa baan leeyahay aad baan uga xumahay mar labaad baaqana waxaan jecelahay inuu si fiican u gaaro madaxweynaha iyo cid ka agdhow ee taliyaasha u ah waxaan filayaa kulley uu ka warhayaa fariintu in badan bay gaadhay in fariinteeda uu maantana maqli doono odayaashuna way ka dambeyn doonaan magacaygu waxa weeyaan boqor xaaji maxamed aadan naaleeye halkan waxaanu ku shir baanu maanta isugu nimay beelweynta Arab haddaanu nahay waxaanu ka hadlaynay arinta Axmed Ismaan Gelle Arab waxaanu doonaynaa inaanu arinta baaq sare iyo mid hoose mid walba mujaahid Muuse Biixi Cabdi uu diro inaan ninka cadowga ina Ismaaciil Cumar Gelle inuu Somaliland burburiyo doonaya ma doonayno inuu madidiisii inala soo geliyo inuu inagu soo dhex darsado ninka quraynoo dhaqdhaqaaqayay ee waddankeena intaas soo shaqo abuur ka sameeyay intaas oo maal geliyay ee ina tusay in investment laga shakaro dhulkeena weeyaan inaan ku dhaadanayno ahayd inay maaha odayaasha Arab soo qayliyaan adigoo mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha aanu dooranay ah waxaan aad iyo aad mar labaad kaaga codsanaysay odayaashii hore salaadiintii iyo xoqashii kaaga codsadeen arinta inaad dub u eegto fayowna ku eegto wuxuu wadaa inaa ninka odayga xagga Djibouti isku dhac iyo iska horimaad arinta intii mujaahid baa ka taxadiri karto dad ka taxadirto oo anana aanu ku garab taaganahay waxaan leeyahay waxaan la qabnaa waxay salaadiinta Arab soo gawiyeen waxaan u sheegayaa oo Muuse ku leeyahay
magac wanaagsan iyo raad wanaagsan baad leedahay yaanaynu cumar geele kaa baabiinin dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudiga dibadba halkan maanta waxaan isugu nimid oo isugu kaya keenay dhiila ka soo yeedhay odayaashii iyo salaadiintii Arab ee wadankii joogay dhiiladaas oo ah in hubkii la dhigay dib loo salaadiintii garba loo sulay hubkii ay ka ururiyeen in caruurtoodii iyo inamadoodii ayaa dib garba loo sulay salaadiintii way wadkaysan kari waayeen Muuse Biixina waxaan leeyahay dawladdiisa oo naan la gabanayn oo nuu sheegayna awooddu ku kaxaynayo Muuse Hargeysa uu ka kaxaynayo Axmed isaga keeni doona la isu joojin maayo kuwa ciidanka ku jiraana waa aniga ka xabadda haystaana waa aniga kursiga haddaad cadaalad iyo wanaag ku fadhiyi weydo la wada joogi maayo marka waxaan leeyahay oo Muuse Biixi Cabdi xildiid leeyahay war isnaqaana niman wada degeenu niman gacalaynu nahay niman si wanaagsan isu naqaanaba war nabadda iyo cadaaladda war hoos u eg oo faraha kala bax madaxweynaha tahay reeraad soo noqonayso iyo tijaarta aad xaqiiqinayso haddii aan la yidhaa maanta waa la dhiibay oo xaggaasaa la geeyey aad rabto saa ahaan mayso wax weyn baa iska bedeli doona nabadgelyada Soomaaliland wada ilaalino meeyaan ugu soo wada jeedno haddii wax la wada qaban waayo dala isku iman maayo anigoo ah Maxamed Xirsi Madadaal waxaan doonayaa inaan arrin yar ka hadlo oo ah arrintan la doonayo in Cumar in Geele Arab la doonayo in loo dhiibo Djibouti run ahaantii waa arrin markii aan isla eegnay aad aan uga yaqyaqsoonay waxa aan garan waayay anigu halka ay Soomaaliland Interpol ku noqotay talabaad waxa weeye arrintan waxa loo yimi markii hore oo aynu ogeyn in loo yimi dawladdii Siiraanyo oo ay ka diiday maanta oo uu Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ka yahay wadanka in uu yiraaho nin baayac mushtara oo maanta sida uu dadka u shaqaalay aynu ognahay lacagta uu wadanka u galiyay aynu ognahay oo cid waliba qabiil bay ka soo jeedaa oo qabiil ka soo jeeda ayaa waxaan u dhiibayaa maanta in Djibouti baan u dhiibayaa yani run ahaantii wax la qaadan kara maaha waa wax aad u falxun arrintana waxa aan ku soo gabagabeynaya anigu hadalkii qolooyinkii iga horreeyay baa aad iyagu u dhameeyey waxa aan run ahaantii ku kalsoonahay oo aan ku dhiirigelinaynaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo madaxda Arabka ee halkaa joogta in ay tallaabo wanaagsan oo tallaabada ay qaadaan tallaabadeeda ay qaadaan oo ay iska difaacaan arrintaasi waa arrin aad u falxun haddii aad taa iska difaaci weydana dee berita waxa ku xigtay in wax kale lagu sameeyo aan xaabada u soo gurno dadku aan u shaqeyna markaa maxaa kale jira waa lagu ricideeyay markaa anigoo magacaygu yahay Maxamed Cabdi hadal badan odhan maayo odayaashii dhalinyartii iga horreeyay baa hadalkii dhameeyey laakiin shuruucdii markii hore dawladdii Axmed Siinaanyo ay ku soo qaban weyday in Geele Arab mashruuc kale ka dambeysay oo iminka dib loo samaystay oo loogu soo qabanaya sharcigu markii hore hadduu qabanayay Axmed Geele Arab dawladdii Siinaanyo maxay sharciga u raaci weyday ay u qaban weyday su'aashaasaa mudan in la isweydiiyo iyo dadka in loo turo marka hadalkayga intaasaan kusoo gabagabeynayaa madaxweynaha waa inuu arrinkan dib u eegaa uu dadka Soomaaliland guud ahaan arrinkan uu qusayn karo uu u turaa uu dib u eegaa arrinka dadkan shuruucdan Djibouti soo wada shaabaday waxaad u malaysaa inay hal meel un ka soo wada jeedaan oo taasi ay dadkii dhiilo ka dhex abuurayso waxa loo baahay madaxweynuhu inuu taa dib u eego uu soxo arrinkaana uu noqdo arrin ummadda Somaliland aan kala geyn maaragtay isu keena ayaanu ka rajaynaynaa aygu waa Cismaan Cali Cilmi waxaanu halkan iskugu nimid annagoo ah jaaliyadii beelweynta Arab ee Toronto inaanu halkan ka gudbino laba qodob oo muhiimadiisu ay tahay
in aanu taageerno salaadiintayadii iyo odayaashii baaqii maanta ka soo yeedhay iyo inaanu xukuumadda baaq u dirno hay horeysa waxaanu si buuxda u taageeraynaa baaqii ay salaadiintu maanta ay maxay haytay soo saareen oo mid aad iyo aad runtii shucuubtayada u kicisaya in nin muwaadina la yidhaahdo waxaa loo dhiibayaa dal kale waa wax aad iyo aad looga yaqyaqsoodo waxaanu aad u taageersanahay salaadiintayada haddii aanu nahay qurba jooga ta labaad waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda nin muwaadina axmed cismaan geelle goor uu noqday dee qalbi dhagaxoo kale oo la yidhaahdo waxaa loo dhiibayaa cadow dal kale inagu cadowa maanaan garan sheekada beesha uu ka soo jeedo qiimaha weyn ee ay ku leedahay somalilan waa la wada ogyahay 1993 wuxuu ahaa ninkii hubka naga dhigay allah ya raxme suldaan maxamed suldaan faarax maantana ninka baaqa diraya waa suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax waa kala laba weji weeye marka waxaan odhan lahaa xukuumadda iyo madaxweynaha sharafta naga mudan in hawshaa dib looga istaago oo dib looga fiirsado haddii kale dee wixii ka yimaada waa la wada arki doonaa waxaan leeyahay muuse bixi madaxweynaha axmed cismaan geelle haddii aad awooddo nin muwaadina oo ganacsada ah oo dalka dhiiggiisa iyo naftiisaba u huray inaad cadow u dhiibto ha la arko ee samee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan jaaliyadaha somalilan ee dabadda iyo gudaha habeenkan caawa waxaanu halkan usoo fadhiisannay inaanu ka hadalno shir ay yeesheen jaaliyadda north america gaar ahaan dalka canada toronto oo aanu kaga hadlaynay baaqi maanta ka soo baxay salaadiinta arab ee ka hadlayay magaalada hargeysa midiyaha ee ku wajahnaa dowladda somalilan qabashada ay doonayso inay qabato axmed cismaan geelle arab oo ka mid ah tijaarta somalilan oo ay isku hayeen maal iyo xoogaa adigu contracts wax caynkaas ah oo dacwado madani ah dowladda jabuuti ee ismaaciil cumar geelle ay isku hayeen inay go'aansatay dowladda somalilan inay u dhiibto dowladda somalilan aanu garan maayo goortii contractkan la saxeexay in dowladda somalilan iyo dowladda jabuuti goortan ay isku mid noqdeen maxkamadahoodu contractkan la saxeexay in dad laga qaado somalilan dacwado madaniya in loo gudbiyo dowladda jabuuti oo laga qaado maanta waxaan arkaya salaadiintu waxay soo saareen waraaq ay saxeexeen dad madaxda somalilan ka tirsan oo isku wada beela arrintaasi waa arrin macnihii qori dable lagu gelinayo somalilan madaxweynahana waxaa loo baahan yahay madaxweynaha somalilan isaga ayaa loo jeedaa waxaa la doonaya dalka in qori dable la geliyo qalalaase la geliyo oo ay la kiciyo bulshada dadka la kiciyo axmed geelle arab waa nin tijaarta ka mida somalilan iyo jabuuti iyagaa og waxay isku qabteen iyagaa yaqaana siday u kala baxayaan haddii ay maaragtay anigu ma jecli in cid la dulmiyo isaguna inuu cid soo dulmiyo ma wanaagsana anigu waxaan odhan lahaa arrintaa ha lagu dhambeeya arrin dhaqan laakiin haddii imka sidan ay noqoto waxay noqonaysaa arrin dhafoor taabasho ah oo kicin doonta ummadda kicin doonta oo reerkan arab la yidhaha kicin doonta waxaan arkayay iminka wasiiradii la sameeyey madaxweyne isku bedelka uu ku sameeyey waxaan hadlay gabadh fahiime la yidhaha ka soo jeeda beesha sanaag oo hadlayso xildhibaana oo le madaxweynuhu macnihii waxaana lagu wada kicin waxaan arkayay nin isna ka tirsan xogayaha wadani ah oo isna galbeedkan qolada boorama degta ah oo isna le madaxweyne ku-xigeen baa nala siiyo madaxweyne ku-xigeenku waa krishboy macnaha waxaad moodaa in muuse biixi la doonayo in dadka lagu kiciyo madaxweyne waxaan leeyahay dadka yaan lagu kicinin dadku iyaga annagaa ku dooranay madaxweynihii somalilan baa tahay dadka yaan lagu kicinin arrimahana hoos u eeg axmed cismaan geelena waa muwaadin uu siiyey dastuurka somalilan xuquuq uu siiyey dacwadiisuna waa dacwad madaniya
arrintaas madaxweynaha waxaan usoo jeedinayaa inaanu ku fashilmin oo aanu ku ceeboobin oo aanu waddanka aanu u horseedin qalalaasiyo kacdoon